Ku soo dhawaada Somali Scholars University haddii ay tahay markii kuugu horeysay aad soo booqato YouTube channelkayga subscribe saar fiidiyowgana like saar maanta waxaan qaadanaynaa casharkii 6aad ee Business Administration maamulka shirkadaha iyo xaaladaha ganacsiga mowduuca maareynta maaliyadda Financial Management qaacidada Key Concepts halka fikradaha Key furaha ama halka Concepts fikradaha maaliyadda waa nidaamka lagu maamulo lacagta horumarinta iyo khidmadaha dhaqaale ee shirkadda si ay u gaarto yoolasheeda afarta lugood ee shirkadda ay leedahay dakhli revenue lacagta shirkaddu ka soo hesho adeega ama badeecada kharashka expense lacagta la bixiyo si loo wado ganacsiga faa'iidada profit dakhli minus kharash waxay la mid tahay faa'iido miisaaniyadda budget qorshaha lacagta ee muddo gaar ah nuxurka casharka main content maaliyadda shirkadda waxay ku tiirsan tahay 3 qodob oo muhiim ah maamulka dakhliga si fiican u qorsheynta iyo ururinta lacagta xukuumaadka qarashka yacni waxaa loola jeedaa kontroolidda qarashka ka fogaanshaha isticmaalka lacagta ee aan loo baahnayn maalgashiga investment lacagta la geliyo ganacsiga si faa'iido loo yeesho qaacida ayaan soo qaadanaynaa faa'iido dakhli minus kharash tusaale 5,000 minus 3,200 waxay la mid tahay 1,800 faa'iido su'aalaha casharku practice questions shirkad heshay 8,000 dakhli kharashkeeduna yahay 5,500 maxay tahay faa'iidada liis kooban ku qor 3 sababood oo miisaaniyadda muhiimka u tahay shirkadda farqiga u dhexeeya dakhliga iyo faa'iidada si gaar ah u sharax halkan waxaa inoogu eg casharkeeni 6aad ee Business Administration daawada haddii aad gadaal noogu soo gaartay waxaan soo gudbiyaa casharo ku saabsan Business Administration haddaad jeceshahay inaad ka mid noqoto dadka ka faa'iidaysta casharada aan halkan kusoo gudbiyo fadlan YouTube channelkayga subscribe saar fiidiyowgana like saar aad baa noo mahadsantihiin